Hello kusoo dhawaada casharka waan ka bixinayna luqadda JavaScript oo ka mid ah luqadaha kombiyuutarka lagula hadlo. Kombiyuutarku waa bini'aadamka oo kale siduu bini'aadamku u baahan yahay luqado kala duwan ama bini'aadam kasta oo aad la hadlaysid uu u baahan yahay inuu yaqaano luqadda aad kula hadlaysid ayuu kombiyuutarkuna u baahan yahay haddaad la hadlaysid lacalla inuu yaqaano luqadda aad kula hadlaysid ama cagsiga kasoo akhri in aad adigu taqaano luqadda kombiyuutarku hadlo. Haddaba luqadaha kombiyuutarku hadlo waxaa ka mid ah luqad loo yaqaano JavaScript waxayna ka mid tahay xilligan la joogo luqadaha ugu caansan ama loogu adeegsiga badan yahay JavaScript, Python iyo Java luqadaha saddexda luqadood ee lagu adeegsiga badan yahay. Haddaba JavaScript intaan JavaScript wax loo adeegsan gelin kombiyuutarku waxyaabaha uga duwan yahay bini'aadamka waxaa ka mid ah haddaan sheegnay wuxuu kala mid yahay kombiyuutar kastoo yaalla adduunkan ama kombiyuutarada casriga oo dhan luqad kastoo kombiyuutaradu ay ka hadlaan kulligood u wada yaqaanaa. tusaale ahaan haddaad taqaanid Soomaali iyo Ingiriis oo aadan aqoon Finnish iyo Swahili iyo Maxaali kombiyuutarku wuu yaqaanaa luqadaha kombiyuutarada kale ay yaqaanaan oo dhan yacni adigu ma taqaanin luqadaha bini'aadamku wada yaqaanaan laakiin kombiyuutarku wuu yaqaanaa luqadaha bahdiisu ay taqaano bahda kombiyuutarka luqadaha looga hadlo dhan kombiyuutar kasta wuu yaqaanaa yacni kombiyuutarka hadda hor yaalla wuxuu ku hadli karaa luqadaha jira oo dhan kulli kula hadli karaa taa kula sheekaysta ugula sheekaysanaya. haddaba maxaa loo adeegsadaa si aan JavaScript u baranno waxaa u baahannahay inaan ogaano maxaa horta loo adeegsadaa waa aan u baranaynaa. JavaScript waxyaabaha loo adeegsado waxa ugu caansan waxaa weeye in website-yada lagu sameeyo يعني website-yadan hadda arkaysid JavaScript aan Google ku qoray website dhowr ay soo baxay JavaScript ka hadlaya waxay doonaan ka hadleen laakiin website kasta waxaa lagu dhisi karaa JavaScript of course adoo ku daraya HTML iyo CSS tusaale ahaan kale Wikipedia waxaa ku dhisi kartaa adoo adeegsanaya JavaScript luqad ahaan yani kama hadlayo qoraalkan hadda horjoon ka hadlay waxaan ka hadlayaa website-ka Wikipedia waxaa ku dhisi kartaa JavaScript website-yada meesha yaala dhan kulligood waa ku dhisi kartaa. waxyaaba aad adeegsan karto waxaa ka mid ah JavaScript inaad ku dhisto game caadi inaad ku samayso online ah ama computerka ama mobilka lagula soo degay animation caadi inaad ku samayso waxyaaba kala tiro badan. haddaba let's go aan caadi u dhisno waxaan samayn lahayn caadi u samayno JavaScript si aad computerka ugu qortid ama computerka u fahmo wuxuu u baahan yahay inaad u qortid meel ugu qortid meel kastana iskama qortid halkan intaa Google ka soo galo halkan awaamir JavaScript kuma qori karo ma dhihi karo kadana akhri waxa u baahanahay meel loo khaas yeelay JavaScript-ga oo aad ku qori kartid ama luqado kale tiro badan aad kula qori kartid muhiimadu meel sida Word-ka aad ugu qorato qoraalada maqaalada Word-ka aad ugu qorato marka wax xisaabinaya Excel iyo waxa uu aado ayuu wuxuu u baahan yahay code-ka aad qori doontid code-ka waxa loo yaqaano meel aad ku qorto. haddaba meelaha ku qori karto laba kala baxaan inaad computer mid kula soo degto online soo download garayso iyo in aad isticmaasho mid online maanta waxaan isticmaalnaa mid online waxaan aadaynaa website-ka la yiraahdo stackblitz.com qofkii la soo arkaysto su'aal kara stackblitz.com kana wuxuu tagayaa meesha ay ku qoran tahay JavaScript waadna haystaa waad joogtaa meesha ku qoran waxaan meesha ku qoran ama baanin meesha markoo iska xir JavaScript starter ta meesha ku qoran sidaas uma baanin maanta waxaa dhan iga wada tirtir kabadana waxaa soo qaadataa console-ka hoos yaalla alaabta hoos taalla console soo qaado. okay bismillah si aan u bilowno JavaScript waxaa u baahannahay inaan ka bilowno bisinkeeda waa maxay variables oops error errorka waa maxay can't find variables. okay bisinkeedana ka bilaaben aan shaytaanka iska karnaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأوباهنا إنا برنا أعوذ هذا JavaScript وحوي واحد يراهدو commenting إن أتكهر مريسو أما أنت أنا شيء وحلا كهر مرنيه مرة قربت واحد وباهنا تمرك كود قرصيد إن هذا القرصيد تصل أهانو كله إن هذا وحاول تغير شيء عن وحاس تصل أهانو كله first name باقرطي first name marka hartaan ay halkan hadal ku qortid dadka ay xasuust ama adigu ay xasuustid ama qofka code-ka akhrinaya aad u sheegtid waxaan wuxuu u taagay magaca koowaad ee qofka lagu siin doono magacyadiisa hadal caadi hartaan ay qortid laakiin meeshaan joogno waa index.js wax la yiraahdo yacni computerku wuxuu naga filayaa halkan waxaa ku qoran oo dhan inuu yahay code saxan oo JavaScript ah hadal caadi ma filayo. haddaba si aan hadal caadi u qoranno waxa la yiraahdaa waxa jira wax la yiraahdo comment inaad shayga ka dhigtid comment hadal ahaan aad computer ku dhahay waraa waxaan waa hadal inta la soco code ma aha code ahaan oo akhrin sida error haysin. haddaba si aan wixii comment ooga dhigo waxaan samaynayaa laba forward slash ba ka hormarinaya laba forward slash hadda marka
shaygan computer muu akhrinayo totally ka boodaya errorkana uu tagay okay inta waa cawdiga iska oo nimaano variables ka hadlayna laftigooda variables ka san ka hadlayna computer saa u shaacisid saa u leeyahay tusaale ahaan oo kale x waxay la mid tahay hortaan ahayd x waxay la mid tahay 5 x waxay la mid tahay 4 random bay la mid tahay semicolon marka soo raacaysa bay la mid tahay inta iskama dhigi kartid marka javascript joogtid luqada qayb waa iska dhigi kartaa laakiin javascript iskama dhigi kartid waa inaad boon inta soo qaadatid dhahdaa hello waxaan shaacinayaa variable yiraahdo x boonku waa maxay maanta boonku waa erayo gaar ah boon caadi soo qaadan maysid laakiin erayo gaar oo la isticmaalaa jira erayadaas waa var boonka mid kamid ah boon la yiraahdo jira let const boon la yiraahdo jira haddaba intaan comment ka wada dhigno waqtigooda sababta ma isticmaalno hadda waxaan rabaa inuu computerku u arko comment ahaan inuu yahay waxaas okay x markay saa tahay x iskama qorayo ee waxaa ka hormarinaya saddex mid kamid ah tusaale ahaan oo kale maanta var aan adeegsado var x waxay mid tahay 4 haddaba maanta hadda si saxan buu igu save karayay intaas si saxan buu igu save karayay inta var baa ka hormariyay const waa adeegsan kartaa tusaale const y waxay la mid tahay tusaale ahaan oo kale y waxay la mid tahay tusaale ahaan oo kale 5 aan iska dhaho waxaa kaloo adeegsan kartaa let z waxay la mid tahay dhihi kartaa x lagu daray y x lagu maxaa sameeyaa z waxay la mid tahay x lagu daray y intaana saddexda erayo adeegsaday var const let saddexda adeegsaday su-aashu waxa weeye maxay kala duwan yihiin y aan saddexda ugu baahanahay var aan ka bilaabo var waxa weeye ereyga waaga hore la adeegsan jiray wixii shaytan 2015 ka horeeyay ereyga aad kale loo adeegsan jiray ereyga kaliya jiray 2015 wixii ka dambeeyay laba erey baa soo baxay haddaba ereygan waa erey qadiima hadda aad looma adeegsado waa laga baxay waxa aad kale loo adeegsado waxa weeye labada erey okay su-aashu waxa weeye labadan erey laftigeeda waxay kala duwan yihiin let iyo const maxay kala duwan yihiin hal mar halkaa fiiri waxay kala duwan yihiin aragno waxaan halkan let z waxay la mid tahay ama let kale aan shaaciyo let la yiraahdo tusaale ahaan oo kale w waxay la mid tahay 9 oo kale tusaale ahaan oo kale w waxay la mid tahay 9 baa soo qoray wait a minute erey kale muhiim ah barano intaan baran isbarbardhigooda erey la yiraahdo console waxaan rabaa inaan dhaho tusaale ahaan qiimaha x shaashadaan isoo dhig console kale yiraahdo isoo dhig haddaba shaashada sida loo soo dhigaa waa erey muhiim asna ugu soo laaban doona console.log shaashada waxa ay soo ogtaan leeyahay x soo ku soo tuuraya hadaa dhaho shaashada waxa soo ogtaa y ku soo tuuraya hadaa dhaho shaashada waxa ku soo tuurta waxa soo ogtaa w ku soo tuuraya qiimaha w kullu soo dhigay hadda maanta x kaliya aan soo dhigano okay y na soo dhigno y na aan soo dhigano y na aan soo dhigto qiimaha y na waa soo dhigta asna 4 iyo 5 kala yihiin x iyo y okay let balna waxa ay fiirisaa y na aan soo dhiganayo w na sababtoo u baahnaada okay w na soo dhig baayre w asna maana uu soo dhigay halkan u fiiri marka le w waxay la mid tahay 9 w qiimaheeda bedelaya mar labaad oo waxaan leeyahay w waa 10 tusaale kale uu iga yeelaya markii hore maxaa iri w9 bay ahayd 9 buu soo bandhigay hadda maxaa iri w waa 10 kii buu soo bandhigaya haddaba tan u fiirso marka waxa u fiirsataa y u fiirso y maxaa lagu shaaciyay boonka la yiraahdo const aan dhaho qiimaha y aan bedelo y waxay la mid tahay tusaale ahaan oo kale 6 aan dhaho oops error attempt to assign to read only property haddaba waa ka waxay kala duwan yihiin qiimaha lagu shaaciyay boonka la yiraahdo le waa bedeli kartaa يعني قيمة لغات بدي أوسين كذا واحد كذا W واحد لم يتهاي whatever حتى واحد كذا أنا هذا لم يتهاي أترى كقولتي لكن قيمة لغو شعية بون كلير هذا كونست ديب كم بدري كديد ديب أما ديك ديد واي واحد لم يتهاي إنتاس واحد أنت بدي كديد يعني وا read only وقيمة read only مرة قيمة واحد شرا حوار لقى بدري كره لكن تاسو قاعد دونا لكن توس أما بدري كرت حوار بلقى بدري كره لكن توس أما بدري كرت هذا صالحنا وكله واي وا 5 سادرتد waxay ka bedel kadib sababtoo 5 wax yar oo laga bedel karo maaha sadarteed waana ka wadaysaa hadaba hadalku waxa weeye ruux ku soo ururaya marka ogtahay qiimahan aad bedeli doonin waliga waxa adeegsataa boonka la yiraahdo const marka ogtahay inaad bedeli doonto markasta u baahanayso inaad dib ku bedesho waxa adeegsanaysaa boonka la yiraahdo var boonka la yiraahdo let varna waliga adeegsan mayso sababtoo ah wax laga guuray uma baahnid dad adeegsan heli kartaa laakiin total uma baahnid
okay hadda inta isticmaalo dhan kulligood waxa weeye waa numbers waxaan oo dhan waa tirooyin waxaan oo dhan waxa weeye taaga baabi bedelka waa waxa la yiraahdaa numbers waxaan qorno dhan numbers yani hadda comment waa u baahan anaa ku qoro soo jeed waxaan waa comment waxaan ay numbers si u sheegaya waxa kale oo jira inaad dhihi kartid tusaale ahaan oo kale inaad shaacin kartid waxa la yiraahdo tusaale ahaan oo kale const inta dhaho const وسيل قري الله أكبر const first name صار كالبيلي وحن شاعي variable يرادا first name وحن كشاعي بون const بيلا أو بحي هل كان بيلا وصوب نيكرا console.log w مشان كيدي وحن كدي كرا console.log first name صوب نيك بيلا صوب نيك waxa kala soo bandhigi karaa tusaale ahaan kale waxa samayn karaa variable yiraahdo tusaale ahaan kale let ku shaacsan waxaad ku shaacay let ku shaacay waxaan u bixisaa last name u bixi waxaana ka dhigtaa last name magaca ugu dambeeya sida qof abtirkiisa oo kale halkan waxaan dhigi karnaa marka waxa soo bandhigtaa last name soo bandhig asna last name soo bandhig Bailey first name soo bandhigay last name diiwaan soo bandhigay waxaan sameynaa waxa la yiraahdo full name waxaan u bixinaynaa salam virus ka bixin ereyga qadiimka adeegsana var full name waxa dhahaynaa wuxuu kooban yahay first name oo lagu dhajiyay last name halkan waxa dhigi karnaa asna waxa soo bandhigtaa full name soo bandhig dhigi karnaa asna full name soo bandhig full name muxuu ka dhigay Bailey Liban laakiin mushkilada halkan naga haysta toos buu isku dhajiyay Bailey Liban wax isbay soo dhaxaysiya waxa laga yaabaa leedahay oo ku darka ma maxay ku dar waxa ku naqaanaa inay tirooyin ku isticmaalaan tusaale ahaan kale in haday tan x lagu daray y tiro caadi ay ahayd soo halkan tani soo qad x lagu daray y ana tiro caadi ahayd tiro caadi markii noo ahayd soo aan zin barnaamijna soo bandhigo soo caadi soo bandhigo soo bandhigo زي سoo bandhigo okay x lagu daray y waa maxay qiimaheedu w aan iska tirtiro sababtoo x y ka adeegsanaya x lagu daray y console.log z w error intaan la gaarin okay x lagu daray y waa 9 qiimuhu soo bandhigay haddaba markaas macnay sameynaysa 5 lagu daray 4 macnaheedu sameynaysa 4 lagu daray 5 macnaheedu laakiin waa maxay isku darkaan tan computer ku sameynaya markuu waxaan arko labadana ay tirooyin isku dar caadi u sameynaya laakiin markuu arko waxaan inuu yahay hadal caadi sida Bailey oo kale waxaan uu yahay hadal caadi sida Liban oo kale wuxuu sameynaya wax la yiraahdo concatenation isku dhajin wixii caadi isku dhajinaya caadi isku keenaya ee caadi isku darmaya xisaab ahaan isku darmaya haddaba meesha mushkilada naga haysta waxa la rabaa Bailey Liban inuu caadi isku dhajiyay anaguna marna waxa rabnaa space yar inuu raxaysay space yar haddaba waxa dhex gelinaynaa string ay sax ku jireen string هذا waxaan dhan waa tirooyin bay ahaayeen waxaan dhan tirooyin bay ahaayeen x waxaa 4 5 waa tiro x plus y na waa tiro kale ka soo bixi doonto 9 kulli waa tirooyin kuwan marka waxaa jira iyagana kuwa kale yiraahdo strings wax kasto aan tiro ahayn hadal caadi oo kasta ama yaan dhisaas hadal caadi oo kasta markii computerka la joogo waxa la yiraahdaa string waa hadal caadi waxyaabo kale jira tirana aan ahayn hadal caadi aan ahayn laakiin maanta oo kale labadaasan haysanaa ima number ima string haddaba string kastana waanu isticmaalaa quote ama double quote isticmaalaa ama quote kaas ama double quote tusaale kale Bailey hadda wuxuu ku dhex jiraa hal quote Liban waxaan dhigi karnaa double quote dhex geli meeshan Liban double quote dhex geli waan dhigi karnaa Liban double quote waxba iska bedel yani intii bay ahaanaysaa Liban double quote haddaba meeshan maxaa ku dhex darna markuu saan noo ahaa wuu isku dhajinay waxa laakiin marka intaan soo dhex gelinay wuu kala qaaday Bailey Liban wuu kala qaaday sababta waxa dhex gelinay string ay sax ku jirin string banaan baa soo dhex gelinay soo jeedid quote-ki banaan baa soo dhex gelinay and that's it I think mas waxa ku darnaa arithmetic let's ku darnaa xisaabta waxyaabo ku samayn kartaa markii la kala joogay x waa 4 y na waa 5 isku darkooda samayn kartaa waxa samayn kartaa isku kala jarkooda samayn kartaa kala jarkooda waa -1 afar laga jaro 5 waa -1
waxaa samayn kartaa isku qaybintooda waxaas waa 0.8 waxaa samayn kartaa tusaale ahaan oo kale isku dhufashadooda samayn kartaa isku dhufashadooda waxa weeye 20 waxaa samayn kartaa isku jibaarkooda 4 lagu jibaaray 5 calaamadda 2 star waa jibaar 4 lagu jibaaray 5 waxa weeye 1024 yani xisaabaha ay samayn kartaa waa samayn kartaa and that's it waxa laga yaabaa isleedahay waxaan maxay waxaa ku samayn karaa excelka calculatorkayga meel kasta waxaan ku samayn karaa yani inaa variableskan magacyo u bixiyo kabacdina isku dardano ma kala jaro sure meel kasta waa ku samayn karaa laakiin tani waa bilowgii basicska luqadda waa variableska keliya markii hadhow mashruuc weyn aan u baahano kulli waxaan waa adeegsan doonaa laakiin waxaa kasoo bixi doonaa wax interesting kulli waxaan u adeegsan doonaa laakiin waxyaabo kale tiro badan waa ku dari doonaa dadka waxaa kasoo bixi doonaa wax interesting marka therefore maanta cashirkan waxaa ugu soo hormarinay waa cashirka ugu basicsan oo boringka ah laakiin haddana waa cashirka ugu muhiimsan waa bisinkii luqadda meelna kama boodi karid yani ilaa bilowga maalinkaad luqadda bilaabaysid ilaa maalinkaad joojinaysid intaad isfac u baratid ama aad gabaygeeda nacaysid ama shaqo badan ku samaysid waa adeegsan doontaa therefore cashirkan muhiimadiisu waa intaas cashir kastoo basic ah xisaab ku dar markaa baranaysid adoo xoogaa yar ka yaqaana waa boring laakiin ku dar daa ka boodid meel lama socotid cashirkan waa sidoo kale هذا وبالله التوفيق 10 كوادر جافا سكريبت هكذا نوجهه وين 10 ضمير السلام عليكم